maanta ay taariikhdu tahay 15 bisha labaad 2023 waxaa si rasmi ah caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa uga furantay carwo ganacsiyeed aad u ballaaran kaasi oo si meeqaam sare ah loo soo agaasimay. Bandhigan waxaa si weyn uga dhex muuqatay shirkadda Kaabsan oo looga bartay dhismo iyo dhaldhalaal tayo sare leh. Shirkaddu carwo ganacsiyeedkan waxay ku soo bandhigtay agabka lagu dhiso dhismaha kaasi oo raandhiis leh. Maxamed Axmed oo ah madaxa xiriirka dadweynaha shirkadda Kaabsan ayaa si qoto dheer u faahfaahiyay adeegyada ay shirkaddu bixiso. guud ahaan shirkadda Kaabsan waxay ka tirsan tahay Telesom Group laba qaybood bay u qaybsan tahay. qayb waxa weeyaan qaybta wax soo saarka ama productionka waa qaybta soo saartay jaajuurka aad arki doontaan, waxay soo saartay macjuunka, waxay soo saartay interlockingka ama waxaan leeyahay marmarkan dhulka la dhigo, waxay soo saartaa shub tayo leh. guud ahaan qaybtaasi waa qaybta wax soo saarka. qaybta labaadna si aad arki doontaan waa qaybta real estate-ka ama guryaha oo iyaduna aad arki doontaan kulli haddaad booqataan aad soo arki doontaan, haddii kalena aad filmadeeda iyo aad eegi doontaan. shirkadda Kaabsan xagga marka laga hadlayo guryaha waxaan nidhaahnaa iibso deegaan ku habboon guryeyn, taasoo aan uga jeedno deegaan dhammaystiran oo leh dhammaan agabyadii looga baahnaa, hadday tahay xagga nabadgelyada iyo hadday tahay xagga bilicda iyo hadday tahay xagga adeegga caafimaadka jimicsiga, wax kastoo qof uga baahan yahay waan u haynaa adeeggaas. labada xaafadood ee Rugsan iyo Aragsanna waad arki doontaan, iyagoo hadda sidii aanu ugu talagalnay oo aan 3D ahayna way dhammaystiran yihiin hadda. iyagana waan insha Allah taala waan digeyn doonaa. qaybta wax soo saarka waxa ugu muhiimsan waa qaybta shubka. qaybtaasi waxay martaa laab bay martaa. markasta oo shub aan u geyno macmiilkayaga waxaan ka qaadnaa test ama laab aan ka qaadnaa. laabkaasi wuxuu qofka ka caawinayaa inuu ogaado tayada wax soo saar ee shirkadda ama tayada shubkiisu leeyahay ama grade-ka uu iibsaday inuu yahay grade-ka saxa ah ee macmiilku uu helay. marka iyadana waa xagga tayada. waa shirkadda runtii keliya ee leh laab ay wax ku test garayso. qofkii u baahda oo laab independent u baahan ama madax bannaana waxaan u dirnaa laabka RDA ama dawladda, taasoo iyaguna ay ku soo baadhaan. marka labada qodob baan insha Allah shirkaddu ka duulaysaa, waa deegaan iyo wax soo saar tayo leh. marka dhammaan wixii iyadana waad qaadan doontaan. waxa kale oo aan hadda soo kordhinay waxa weeyaan iyadana smart blocks wax la yiraahdo ama jaajuur aan shub ka doonin oo iskilgelaya. marka smart blocks kuna halkaas u yaala, iyadana waa sawiran doontaan. marka iyadana insha Allah taala saasaad u qaadanaysaa aad insha Allah noqonaysaa. wadan hadda joogay carruurta ganacsiga shirkadda Kaabsan waxay ku soo bandhigtay shirkadda Kaabsan waxyaalaha ay ku soo bandhigtay ugu muhiimsan waxaa ka mid ah horta waa markii koobaad macjuunka waxyaalaha u naqaano marmarkay hoosta laga dhigo ama guryaha lagu talbiisay lagu salaaxo waa markii koowaad ee wadankeena laga soo saaro. marka halkaas aad sawiran doontaan iyadoo ay dalkeena laga soo saaray. waxaan kaloo soo kordhinay oo ay kaga qayb galaysaa waxa weeyaan shubka jaajuurka isgelgelaya ee aan u baahnayn shub, maadaama guryihii ay qaali noqdeen waxa ugu qaalisan oo sibidhka yahay in laga maarmo sibidhkii lagu dhex shubayay jaajuurka. iyadana waan soo bandhignay. waxaanu kala soo bandhignay laabka iyaduna ay yar tahay shirkad intay wax ku shubto ku odhanaysa haddana iska tijaabi oo laabka ah. saddexdaa shay baa ugu muhiimsan. waxaanu kaloo idinku bishaareynaa xaafadihii hore aad fiidiyoyadeeda u faafiseen qoladiina media iyagoo real ah oo sidoodiiya oo aadan kala garanaynin inaad xaafaddu ay fiidiyowgii wali tahay iyo in sideedii tahay, iyadana waa soo arki doontaan. qiimo dhibista carwadan aan ugu talagalnay waxa weeyaan waa dhinaca jaajuurka iyo shubka intaba iyagana waan u samaynay. macaamiishana insha Allah way la soo xiriiri doonaan xafiiska iibka waana la soo dhaweynaya.